sidaasay taagan yihiin oo taasaa keenaysa markaa maanta barakacayaasha ay cadar iyo sheegaysa dhibaatada maanta beled xaawo ka dhacaysa ee dhibaatada dadkaasi hooyadii iyo wiilkii iyo waxbarashadii iyo kulli la isla baaba'ay maanta aad garanaysaan meeshay gaadhay iyo waxa ay samaynayso iyo dadkii maanta maxay galabsadeen dhibaatada maxaa gaarsiiyey meel un bay ka dhacaysay farac ka mid ah hadda wuxuu u gudba daawo ama gaar ahaan gobolka Gedo arintaas baan waxaan leenahay oo maanta isaga nimid marka koobaad inaan baaq ka sameeyno dhibka iyo shaqaaqada hadda aan uga baqayno meesha la yiraahdo Gedo gaar ahaan beled xaawo in ilaahay uu naga najiyeeyo oo ina dagaal ka dhicin waxaan ugu baaqaynaa dagaal xal ma aha labada dhan iyo wadadka meesha jooga sharciga eedeynay mararka qaar waxyaabaha dhaco khatarta waxa kamid ah madaxda dawladda qol aan shaqo ku leen dadka inay xirto oo dadka in la xirso lagu xiraa waxa lagu xiraa qofka inuu dambi galo hay'adda shaqada kulada ay soo aadayso xeer ilaalinta qofka xiris iyo maxkamadda xiris aan dhaho xeer ilaalinta eedeynaysa yaa xiraaya maxkamadda xiris qof la iska xiri kara ma jiro haddii dawladnimo laga hadlaayo haddii loo noqonayo tii hore oo nin walba ninka عجيب هيد إن إسلام قدوميه جول محكمة جول كبنادر أو بشي أفراد ورقد قري إسلام أسجى أنا لو يقول إذن هي إسلام بروش أسجى أهليكي وقدومي نفس وياه دولة فضل عليك وحالنا الدولة فضل عليك والمحافظ الله فرماتشو مدحيه يبعته كلام ولا هذا اللي ميسا ولا فريسنا دستورك وحكي سياق هذا وحنا سيانا عن قاعدنا هدي انت هالواي دعينا كلا حكوتان رادينين هدي لوايو dadku siyaalo kale u tashan doonaan ciidan amisom ama ciidan shisheeye qaranimo kuma keeni karo ciidan shisheeye waa dadaaleen kuwa hadda jooga oo hadda la dagaalay qolooyinkan Soomaaliya aan u rabin inay dawlad noqoto laakiin waa limited ana wax way سودو مدحوين فضل wasiiradeeda iyo xildhibaanadii qaranka sida wanaagsan ee sharafta badan aad noo soo dhaweyseen adiga iyo reer Jubbaland sida kalgacaltooyada leh farxadda badan wanaagsan aad noo soo dhaweyseen waana filaynay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo kulliba qorsheenu hadda aan halkan ka sheegay ma intaan joogi doono laakiin adaa noo taliya hadda adaa sheegay laakiin qorshaan ku soconaa waa ka dhaca dalkaani kamid dawladda awoodeedii iyo hantidii qaranka waxaan aaminsanahay inay u sakharto dad inay ku caydo Facebook wiilal iyo gabdho guriga jiifo oo Yurub iyo Mareykan laga keenay oo dadka caaya maxaa u sameynaysaa waxaas dawladnimo ku imaanaysaa waxaas ma ku imaanaysaa mase u malaynaysaa caay inuu la jooji karo abadan waxay kamid tahay ama haram cadde ama shabeelde ama bahal kale ugu yeedhay waxaa la leeyahay ciidankii Turkigu soo tababaray ee loogu talagalay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta beled xaawi iyo doolow iyo intii la keenay shacabka lagu gumaaday waxaan oran lahaa dawladda Soomaaliya wax oo taliyaha nabsuuda qaranka Faad Yaasiin kullane oo baawar aad u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyaan dhihi karo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadii naasabadan ay ku burburtay in raad badan oo kamid ah ayuu ku shaqeynayo aragtida ay muuqanayso xilliga iyada Faad Yaasiin qorshaha koobaad ee uu soo bandhigay waxay ahayd inay bixiyaan tashiilaadka ciidanka aan anigu mas'uulka ka ah laga fuliyay ay khasab tahay oo hadda adeega uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro waa ku faraxsanahay insha Allah waxaan rajeynayaa maalmaha soo socda inaan meelo kala duwan magaalada ka arko maalintii ugu horeysay laakiin waxa ay muuqda dadka reer Jubbaland iyo Kismaayo inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhaweyn fiican insha Allah labada bir soo socotana waa kala war dhamaysanayna haduu Ilaahay yiraahdo
waxa laali wax ciidan hayay bay soo qaadeen waxaa leeyihin dhulkaasaan xoreynayna yaa laga xoreynaya ma shabaab baa loo xoreynaya mise waa laga xoreynaya that means caqiidadii iyagiiyo shabaabka ka dhexaysa baan anugu ku eedaynaya inay lugtooda tahayo shabaabku ama islaam haw ama shahaado ama diin sheego mar haddaad ka hor timaado muslim ma tihid idan kuwanna waxaa weeye waa ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya lugna inuusan ku lahayn ummadda soomaaliyeed rabaa inaan u xaqiijiyo inuusan lugna ku lahayn dhibaatayntii 5taas bilood la imariyey meel aan ku xiranahay iyo wax lee haysta midnana uusan ka warqabin ra-iisul wasaaraha dalka taasna xaqiiqiyan wax dhab ah oo jirtay ahayd waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan reer Jubbaland maanta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo uu ziyaaro noogu yimid booqasho ah isagoo gurigiisa yimid anaguse aan ka jeclaa in safaradoodu ay sidaan hore ugu kaftamayey madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda prime ministerka iyo speakerkiiyo inay xafiisyo furtaan ee dowladda iyo maamul goboleedyada loo qabtay maamul goboleedyadu si aan caadi ahayn u taageereen dowladda waa garab istaageen dhabarkiisa joogsaday madaxweynaha kalsoonidii ay siiyaan maanta xaggee maraysaa kuwa aamusanna xanuunay la aamusan yihiin waa hubaa shaki xataa igama jiro kuwa kalena waa caddaysteen waxaan dhahay walaalo waxaanu shaqo maahay jooji aniga madaxweyne xasan waxaan goobjoog ahayn shirki garawe oo lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha iyo madaxweyne goboleedyada fursad dahabi ah miiska loo saaray madaxda Soomaaliyeed hadda hiddiila jiro dalka Soomaaliyeed uu leeyahay oo ah in dadku ay hal noqdaan oo la israaco oo khilaafka hadda aan ka soo hadlay oo 2011 ilaa 2012 ilaa 13 ilaa mar dhow socday oo ciidamadayda shabaab la diray lagu kala diray oo dhibaatadan ogaa noogu dhacday iyo jawiga maanta Soomaaliya ka jiro aad buu kala qurxan yahay madaxda dalka u sareysay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo baarlamaanka Soomaaliyeed intaba in badan oo kamid ah ciidamadu xawaare siyaasaddu khiyaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha maxaa yeelay waa la dhaartay dhaar baa la maray kitaab baa gacanta la saaray dee waxaan is leedahay waa laga tegey wixii lagu dhaartay waxaa loo batay dan gaara qof kale fotokobigiisa ama jiryo qofba qofka kale waa ka duwan yahay qofba qofka kale meeluu uga fiican yahay ma dhahayo meel walba uga fiican yahay laakiin meeluu uga fiican yahay yah dadku meelaha ay ku fiican yihiin aan ka qaadanno meesha adiga ku liitid anaa ku fiican meesha adiga ku liitan adaa ku fiican haddaa marka taa adiga ku fiicanta aan qaato taa aniga ku fiicanahayna aa qaadatid oon isu geyno waxna hor istaagi kara waxna celi kara oo aan ka warqabin waxaan ku yidhi marka waayahay guddoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motifku muxuu yahay maxaa laga dan leeyahay waxaan ila waaba sheegtay waa qabye wuxuu yidhi hore wuxuu yidhaahdeen qabye ninkeeda dhammaystira Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamo Soomaaliyeed ay joogaan oo daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eglageliyo oo dhibaato intaan la lagu sameeyo iyadoo waxa la dirahay ay tahay hebel baa nacbahay waxa guul darro ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo arrin xaqiiqiya aad guul darro ah cabdishiijana ilmihiisu dharkan ay xidhan jireen waa ballanqaysanaynaa turki baa lagu soo baray hay'adda nabad sugidda yaa halkaa maraysa hay'ad nabad sugid miyaa jirta maya sourcekii wararka ay ka heli jirteen lahayd oo dhan qof kastoo shabaab col la ahaa bannaankay soo dhigeen maxay diidan yihiin shabaab in wax laga sheego oo dhanba diyaaru maaha hay-adda niisa waxay gashay gacan jarmal ما شاء الله
Somali